horankaaga jeesto berjile imaaye hablaha Soomaaliyeed baa la hadlaya hablo waxa ogtihiin in rag isagoo fankiiba iska daayay oo quus ka jooga oo cid isku habsaamay cid dhigaysata aysan jirin in Ilaahay noo soo diray nin ay yaabeeso oo Ilaahay fanka hibo u siiyay oo mursal faladagan la leeyahay ninkaas inuu fankii Soomaaliyeed ee xagga ragga nooleeyay baa la socotaan maanta waxaan inoo wadaa gabara astacajibaysaan oo magaceeda la yiraahdo fikoni faladagan baa la dhahaa fikoni faladagan magaca suugaantiisa eega magacaas la dhahaa gabadha fikoni faladagan gabadhaas soo baxday heestii ugu horeysay soo qaaday 4 saac ugu dameeyay waxa daawatay heesta 4 milyan oo qof adduunyada ka daawatay saas adduunyada dhan baa loo hadalaya barnaamijkaas aan idin wada intaan u guda galin waxaan idin leeyahay subscribe ha lagu boobo like iyo share-tana ha loo badiyo waxaan idin hayaa gabar fikoni faladagan la dhaho baa idin hayaa gabadhaas fanka hadda ku soo biirtay waa qof fanka xoogaysa maaha mid jugaysanaysa maaha waa qof Ilaahay hibo u siiyay hibo waxaan idhi nin dadka kala yaqaan baanahay gabadhaasi meelun bay waxa ka hidaysanaysaa magool bay meelun ka hidaysanaysaa marka u yartahayna waa ogaan doontaan dadkan kala aqaana habayar bay u noqon doontaa hadii kalena xasan aadan ama tubeec bay meelun ka qaraabaystaa waxeedu waa u dhalasho kani waa kii hibada ahaa fanankani waa kii hoodada ahaa weeye fanaaniinta kale waxa kan iska khasbanayay meelaha ka hadlayay maaha qofatani maaha qoftaas hadda aragtaan joogeeda iyo jamaalkeeda waxa 2 mitir bay dhantahay markaan in ka warramo dhererka 2 mitir bay dhantahay saasi dhuubida intaas la egtahay saasi u simantahay waxa moodaysaa in gabigeeda wala shubay baa moodaysaa sidii tiir shuba in la shubay baa moodaysaa markay ciyaarayso xagal walba saasi isaga jibinaysaa xagal walba waxa moodaysaa gabigeeda in madaraq inta loo qaatay xubin kasta la garaacay baa moodaysaa oo la jibiyay baa moodaysaa yaaba maanta alla ii keenay qofta waa ku danseegay hadalka yaan idin ku daalin waatana ila daawada horankaaga jeesto berjile imaaye jacayl binta igada 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 horankaaga jeesto berjile waa u jeedaan gabadha waa u jeedaan gablihii fanka meelaha ka hadli jiray waxay hees ma hayne qoftaas afriisay خلاص waxaan ku iri nin baa waxa la yiri meyd iyadoo meyd la sido oo qabriga loo sii wado baa ninkii meydka ah naxashka ka dhacay baa la yiri mid naxashka dhinaca ka sida waxa yiri alla la maanta go'ay fanaaniintii hore awalba meesha waxba kuma hayn haddana maanta go'een maanta waa inay go'een mar haddii qoftaas u soo baxday خلاص waa go'een waxaan kula talinayaa war hooy sida raggu faladagan u cadowsaday fanaaniinta rag ah gabadha ha u cadowsanina oo hadda cayadeynina wax ka faa'iido oo hadda horumar rabtaan oo hadda rabtaan inaa hore u sii socotaan wax ka faa'iido oo wax way iyada ku daba fayla oo waxaan ku ilaahay horumarka iyo muunada wanaagsan ee leedahay kaga dayda qaabka u ciyaarayso ka daba koobiye oo hadii ilaahay ku xukmayo hanaanka ay codka u soo tuurayso codka halaagisiga oo amoodayso burqa maartay burqa joogta saa u dananiyayso waxaas kaga dayda adduunyada horumarku waxa weey cidna lama dhalan waa la iskaga dayda saasan idin kula talinaya meel kin jaawacatan hadda la wadwado oo sanadkan anaga suuqa nagu wareerisay 10 sano halka ku soo gaartay gabadha asaageeda 24 saac gudahood 4 milyan baa ku daawatay farxiye kabayare iyo maxaan ku raahdaa qofkii la oran jiray hani UK iyo nasteexayndo iyo farxiye fiska iyo laki wacaysiyo de maanta waxa weey godkiina biyo ku soo galeen godkiina ilaahay idin badbaadiyo ilaahay war gabdho xirfado kale ma taqaanin oo lagu shaqaysan karo ma taqaanin tan xirfadaas waliida koob dame uga cabeeno shaaha waliida hal dollar dame uga xayisiin uga dheefeen walaan aroos dame leedin ka yeereen waxa ugu daran waxa weeye arooskay tagto
saasay u shidaysaa arooska tagto markaasaa ciyaarta waxaan ku yidhahda qaabka u ciyaarayso dadkii arooskaa ka soo qayb galay waa ku jabeen aroos imaan dhigto tagtay baa layidhi markaasaa arooskii aroosadii malxiiskii cid eegtaba waa la waayay calaashan qoftaas asaa indhaa loola raacaya markaas iyaduna waxaan ku idhi qof ilaahay baaxad siiyey intay tahay oo ilaahay xoog u dhameeyey oo caafimaad kaamila leh bay sidaa isu walhinaysaa waaba la yaabayba marka dadka ila daawada arooska ay hadda ka qayb gashay dadka Soomaaliyeed ee aroosyada dhiganaya waxaan leeyahay in kula talinaya oday Soomaaliyeed baan ahay hadaa rabtaan arooskiinu inuu shidmo hadaa rabtaan in ayaama laga sii sheekayo war gabadha cashunta oo ka faa'iideysta waxaan ku yiraahdaa meel kale istaago arooskiina waa la waayay aroosyada dadka lagu qasbi jiray oo looga yeeri jiray aroosyada kaale war noo imow maalintaas aroosanina wixiiba waa laga gudbay gabadha hadaa cashumataan iyada kaliya oo idin soo istaagto aadan oo dhan baynu ku soo jabay gabadhaas aan kula tartaarno in aroosyadiina keentaan waxa ka daran oo aan la astacjibi fanaaniinta hadeera dhinac way ka raran yihiin jacayl baa loo dirsaday jacayl bay ku hayaan war qofatani waa dadkii la arki jiray way heesaa wadaniga ay qaadayso Afrika ay hurudooy markaynu u qaadnay Afrika waxa la socotaan Afrika inay maalinta israacday oo heriyada gumaysiga iska tuurtay maanta heesay qaado Afrika u qaaday gaaladii iyo dadkii cadaanka ahaa oo Afrika dusha ka gumaysan jiro ka ilaashan jiray waxaan ku ilaahay waxay dhahan gabadha khatar weyn bay noqotay inta goor tahay kacan iska qabanay heestaana waa in baan la saaray internetada in laga joojiyo way bal si heesta Afrikaanka u qaaso bal eega Afrika ay garadlay danteeda magaratay gumaystu dalalay Afrika ay garadlay danteeda magaratay gumaystu dalalay gabadhaasi fanka horumar degdeg ay ka samaysay waxa u yeertay qoladii Hollywoodka diyaarad baa loo soo diray maanday noo kaalay baa la yiri contract baan ku siinayna diyaarad ba kaligeed u soo direen waa u jeedaan saasi u qaaday kaligeed sitaa iyadoo u ingeeran tahay hatta kursi kaga ma fadhido diyaaradda sariir baa loo dhex dhigay sariir saasi ugu jiiftaa waxaan ku yiri gaala u heesaysa maxaa ku macaan maxaa ku kharaar maxaa ka hadii kara qabow iyo kulayl bay qoftaas ku jirtaa waxaan maqli jiray hadii ilaahay xoolo kula doono hadii ilaahay magac kula doono hadii ilaahay samcad kula doono codkaaga ku maaliya baan maqli jiray maanta baan arkay qoftaasaan ku arkay nacala shidaan ku yaal gabadhaas Hollywoodkii marka uu tagtay waa diiday heshiis waxay dhaheen abadiye ah waliga aan nala gal oo sanadkii 80 milyan oo euro ku qaadatay waxay tiri maya fanka haddaan soo galay waa ku cusubahay dadkii aan cashuurtooda wax ku soo bartay kuwii maxaan ku raahday miraha aniga isiiyay aan suuqa ku soo galay dadkii soo korsado isoo dhalay aanu abaal gudin oo wuxuu ku celin gaalo ka horeeysi maayo dad cadaana waxa way u maalin meeyo marka isuga sanad isuga tiri ummadda Soomaaliyeed gabadhaas sanad bay haysataa halaga faa'iido sanadka nacala shidaankiina ku yaal halaga faa'iido ama hadda sidii subaxii ku yaaca gabaray waxaan kugula talinayaa oday Soomaaliyeed baan ahay maanta anigu waxaan ku yiri waa garanti baan ku siiyay shaabad baan ku dhuftay fanka waa ku ansixiyay oday Soomaaliyeed ahaan hanaanka fanka u soo gashayna waxa jiibo weey xawli baan ku socotaa waxa weeye waa junuud rabbaaniya ku wadata halka ka sii wad gabdhaha fanaaniinta oo fanka ku jira subax bay kugu soo kicinayaan sidii filadan rag ugu kaceen bay adigana maxaan ku yiraahdaa lagu kaci doona waa lagu soo maagi doona wax ku soo caaya arkaysa Soomaalida horumarka ma jecla in qof kamid hore u talaabsano ma ogola waxay halka la gaareen bay ku ka tahay oo adduunyada uga hareen waxa kula talinaya cidna dhig jalq hoosin halka ka sii wad barta ka sii hay dadka kuwa kugu dhashay walaalaha baa kugu xumaanay iska ilaali
iska ilaali goonnimar noqo goonnimar noqo waxa kaloo kaa codsanaya waxaana loo sheegay maalintii 5 heesood inaad soo qaadayso maandhay waa nugu yartahay 10 nooga dhig heesaa 5 waa nugu yartahay oo haddii aan 10 ka dhigi karin oo waqtiga aadan u hayn maandhay 7 nooga dhig dhibaato badan kuma haysato waxa la yiri mobilkaaga iskaga soo duubaysa waxa la yiri miruhu waa kuwaagi weeye waxa la yiri waxaaga dhan waxa weeye isku filan baa tahay waxa weeye wax walba hay'ad dukaanka la oran jiray oo kale waxaaga dhan aad wataalay cidna uma baahnid marka maandhay noo soo badi qalbiyadayba soo nooleysay sida annaga waxa weeye gabigaygaba cilka noo gisay ilaahay ku sharfo waa musharxiisina ku reebay sheena culay oo idin leh subscribe like iyo share yaa laga ilaawin wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh